salaam Allah saaxiibayaal isku soo noqod wanaagsan waxaa jiray in dhalinyaro badan ay soo weydiiyeen su'aalo ah sidee uga faa'iideysan karaan e-learning-ka ama xaggee wax ka baran karaan oo la isku haleyn karo haddii noqon lahayd platformyada kuwa ugu fiican koorsooyinka laftirkooda sideed ku ogaan kartaa koorsada saxda ah ee fiican iyo midda kale oo yacni maxaa loo baahan yahay inaad ka eegtid koorsada inta aadan iibsan haddaba laba ayaan u kala qaadinaa mid waa mid ah platformka aad wax ka gadanaysid waa inaad si gooniyaad u fiirisid hadduu yahay company ama yani open market oo ah meel wax walba la soo dhigo ama macallimiin kala duwan ay koorsooyin ku soo gudbiyaan ama hadduu yahay qof shakhsi ah ee leh platform wax lagu soo gudbiyo ee kaligiis macallinka ah platform ahaan maxaa la rabaa inaad fiirisid oo aad ka qiimeysid platformka kow waa inuu lahaadaa platformka wax ka baran rabtid waxa la yidhahda refund policy inta aadan wax ka gadan ka hor waa in aad ogaan kartid haddii lacagta aad bixisay lagu soo celin karo iyo in kale haddii aad wax ka heli weysid ama koorsadii aad gadatay hadday ku anfici weydo sababtoo bini aadan baa tahay waxaa laga yaabaa koorsada inaadba ka heli weydo saas awgeedna waa in lacagtaada lagu soo celin karaa oo xaq ayaad u leedahay kow waa inaad refund policygaas aad fiirisid labo haddii uu yahay platform weyn oo qof walba oo macallimiin badan ay wax soo dhigaan waxaa laga rabaa inaad fiirisid platformkaas sumcadiisa ama backgroundkiisa haddii uu yahay shakhsi waa inaad shakhsigaas aad aaminsan tahay ugu yaraan labadaas ayaad u kala fiirinaysaa marka koowaad koorsa ahaanna waxaa lagaaga baahan yahay inaad fiirisid waxyaabaha soo socda kow waa in koorsada ay leedahay introduction video muuqaal ku saabsan koorsada wax looga hadlayo labo waa inay leedahay preview lessons cashiro ka mid a cashirada lagu bari doono oo free ah oo dabcan oo furan oo aan u baahnayn inaad koorsada gadatid oo aad iska fiirin kartid inta aadan gadan ka hor labo koorsada waa inaad iska fiirin kartid reviewgeeda haddii platformku uu leeyahay review waa in reviewga aad fiirisid sidoo kale waa in contentiga koorsada lagugu barayo o dhan ama sectionada aad ku baranaysid oo dhan waa in kulligood ay kuu muuqdaan oo ay halkaas aad ka arki kartid waxa lagu bari doono sidoo kale waa in aad ka fiirisid waxyaabaha aad ku baranaysa ama wax la yidhahdo what you will learn oo platformyada qaarkood ay leeyihiin kaasna waa inaad iska fiirisaa oo halkaas waxaa lagugu soo koobayaa topigyada guud ee dabcan aad ku baranaysid koorsada materialska aad helaysid ee koorsada lagugu siin doono asagana waa in aad iska fiirisaa iyo sidoo kale requirementska loo baahan yahay intaad koorsada iibsan halkan waxaan ku hayaa dhowr platform oo ka mid ah kuwa soomaalida ay wax ka bartaan waxaana lagu soo gudbiyaa koorsooyin af soomaali ku baxa halal ayaan iskula eegi doonaa mid walbo dhaliisha ay leedahayna waa sheegi doonaa haddii ay wax ka qaldan yihiin lacalla muuqaalkan keliya waa in ardayda ama dhalinyarada rabta inay wax bartaan loogu faa'iideeyo haddii aad si qalad u fahantid reviewga aan ka bixinayno website-kaaga afeef ayaan ka dhiibanayaa ee ma ahan wax adiga lagugu dan leeyahay ama kambanigaaga loogu dan leeyahay keliya wixii ka qaldan waa in laguu sheegaa si laftirkaaga aad u saxdid oo qayb ay uga noqoto horumarkaaga shirkadda ugu horeyso waa hurbad qaarkiin waxaa laga yaabaa inaad taqaanaanba website-kooda markii aan soo galno waxaan isla eegi doonaa qaar ka mid a koorsooyinka ay halkan ku hayaan naqshad ahaan website-kooda ma fool xumo waa website aad u qurux badan maasha allah waxaan tegaynaa mid ka mid ah koorsooyinka ay dhigaan tusaale waxay bixiyaan dibloomo koorsooyin gaagaaban iyo buugaag haddaba qaybta koorsooyinka ayaan isla fiirinaynaa tusaale midkan wordpresska ayaan ku dhufanaynaa halkani waa halkii koorsada aad ka iibsan lahayd waxaad ku arkaysaa casharada ay ka kooban tahay koorsada saacadaha aad baranaysid iyo in certificate lagu siinayo sidoo kalena halkan hoose waa halka aan ku leeyahay materialska lagu siinayo ee koorsada waa inaad iska fiirisaa halkan ayay ku qoran yihiin halkan waxaad ka helaysaa 7 cutub oo cashiro ah 7 cutub ay koorsada ka kooban tahay iyo cashirada oo 61 ah iyo shahaado markii aad dhamaysida ardayda iska diiwaangelisay halkani way ku caddahay laftirkeeda oo waxaa iska diiwaangelisay 87 arday damo ardayda ay badato iska diiwaangelisay koorsada damo aad qiyaasi kartid in koorsadaas ay fiican tahay haddaba haddii aan hoos u degno koorsada muuqaalkeeda introductionka ah waa kan haddii aan hoos aga daadegno xoogaa yar ma jiraan muuqaal furan ee preview ah oo ah cashirada lagu bari doono qaar ka mid a kulligood ay wada xiran yihiin haddaba haddii aniga hadda aan ahaan lahaa tusaale qof raba inuu gato koorsadan oo saana usoo galo oo aan fiiriyo muuqaalka introductionka ah kadibna hoosaan u dego cashiro kalena aan waayo dabcan ma jeclaysanayay sababtoo ah ma faham guud kama haysti waxa la bari doono sidoo kale qodobkii aan sheegnay ahaa in contentiga lagu bari doono uu halkan ku wada cad yahay ayagana way ka gudbeen oo yacni way ku guuleysteen oo uu cad yahay sectionada dhan lagu bari doono halkan way ku xusan yihiin ama moduleska waxa kaliya halkan aan ka arkin hadartaan waa preview lesson waa in at least 2 cashir 3 cashir
oo free ah ay jiraan ay aan daawan karo si faham guud aan uga yeesho koorsada sidoo kalena ma aysan cadeenin in beginner level ay tahay in qofka advanced levelka uu qaadan karo qofka wax looga baahan yahay ama requirementska ma aysan ku cadeenin halkan qodobka ugu dambeeya ee la rabo inaad fiirisid maadaama ay yihiin company waxa weeye inay leeyihiin refund policy in kale website-kooda qaybta ugu hooseysa haddii aan imaado ama home page-ka aan ku laabto home page-kooda haddaan tago meesha ugu hooseysa aan tago ma jiraan wax refund policy ah oo ay leeyihiin oo ma laguu sheegayo haddii aad geeto koorsada in lacagtaada laguu soo celin karo iyo in kale haddii aad ka heli weydid dabcan haddaba refund policy-na laftirkeeda inay kusoo daraan ayaa aad u fiicnaan lahayd si ardayda ay yacni u ogaadaan in lacagtooda loo soo celin karay in kale si loo kordhiyo wax la yidhahdo transparency-ga waxaan ku xijinaynaa platform la yidhahdo share xirfad asagana waxaa lasoo dhigaa koorsooyin Soomaali ah macallimiin Soomaali ayaan wax ku soo kordhiya haddii aan hoos u daadegno koorsooyinkooda website-ka haddii aan ka bilowno website-kooda naqshadiisa aad ayuu u qurux badan yahay oo ma falxuma maasha allah koorsooyinka iyo kategoriyaasha iyo koorsooyinkana home page-ka waa laga arki karaa haddaba mid ka mid a koorsooyinka ayaan fiirinaynaa haddii aan hoos u daadegno tusaale midkan ay ku qoran tahay complete beginner cyber security-gan ayaan fiirinaynaa halkani waa meeshii aad ka gadan lahayd koorsada oo aad ka iibsan lahayd waxaa ku qoran inaad iibsan kartid waa buy now ayaad ku arkaysaa koorsada inay beginner tahay waa loo caddeeyey saacadaha ay soconayso iyo sidoo kaleba inta muuqaal ay ku jiro meesha haddii aan hoos uga daadegno marka koowaad way leedahay muuqaal intro ah ama introduction haddii aan hoos uga daadegno about course-ka aan tagno waxaa halkan ku arki karnaa in ay leedahay yacni about course oo ah waxa koorsada looga hadli doono ama uu ku baran doono qofka sidoo kale qodobka aan sheegnay ahaa what you will learn laftirkeeda ayadana way leedahay koorsada oo waxyaabahan ayaad ku baran doontaa materialska laftirkeeda ayagana way caddahay yaa loogu talagalay laftirkeeda way ku xusan tahay haddii aan fiirino inay leedahay review iyo in kale showmo ayaan leenahay kadibna reviewgaas ayaan tegaynaa reviewgeeda wuu fiican yahay maasha allah koorso walba in reviewgeeda saanaad u fiirisa aad ayay u fiican tahay waxay ku mahadsan yihiin in ay u sameeyeen review sababtoo ah platformyo qaar waxaa jira aanan lahayn wax review ah oo aadan ogaan karin in review laga bixiyey in kale reviewgeeda ardayda gadatay falcelintoodana halkan ayay ku qoran tahay markaan u imaano contentiga koorsada contentiyada lagu bari doono oo dhan way ku xusan yihiin ama moduleska ama sectionadoo dhan halkan way ku xusan yihiin oo waad arki karta sidoo kale preview lessonska furan laftirkooda way jiraan oo cashiro furan ayaa halkan ku jira tusaale macalinka qofka uu yahay way furan tahay sidoo kalena waxa aad ku baranaysid koorsada ayadana way furan tahay haddii wax walba la xiro dabcan ardayga ma qanci karo ma ogaan karo waxa uu baran doono iyo in kale waxa uu baran doono iyo waxa kale qodobadii aan sheegnay oo dhan way wada leeyihiin balse hal qodob ayaana u jeedin ilaa iyo hadda waa ardayda enroll garaysay cashirkan ama koorsadan waxa fiicnaan lahayd in ay leedahay meel laga arki karo ardayda enroll garaysay haddaba haddii muuqaalkan daawanayaan bahda shar xirfad in ay soo furaan ama ay tusaan ardayda koorso walbo inta enroll garaysay inta qofka uusan iibsanin ka hor taasna waxaan rajaynayaa in ay ayaga faa'iido u tahay ardaydana ay faa'iido u tahay qodobka ugu dambeeya oo aan ka fiirinayno maadaama ay yihiin company waa inay leeyihiin refund policy in kale haddaba haddii aan imaano home page-kooda qaybta ugu hooseysa ee footerka waxaa ku qoran halkan refund policy haddaba haddii aan isla eegno refund policy-gaas waxaa ku xusan in refund policy-gooda uu shaqaynayo 3 beri markii uu gato maalinta qofka uu gato laga bilaabo ilaa 3 beri ayaad jaanis u haysataa in aad soo dalbatid refund lacagtaadana waa lagu soo celin doonaa ayay leeyihiin ama halkii aad oga gadatay akoonkii aad ku iibsatay ayaa toos loogu soo celin doonaa hadday jiraan lacaga lagu soo diray hadday jiraan waxyaabo yacni cilado ku qabsada in lacagtaada ay ku soo gaari weydo iyo wax la mid ah waxay kuu sheegayaan tilmaamaha aad samayn kartid haddii wax faahfaahin dheeraad u baahan tahayna in dabcan aad la xiriiri kartid emailkan iyo lambaradan waana muhiim in customer care-kooda uu active yahay haddii lala xiriiro oo ay soo jawaabaan website-ka xiga asagana waa Afogi mid la yiraahdo Afogigan asagana waa platform lagu soo gudbiyo koorsooyin wax laga barto haddaan isla fiirino website-ka naqshadiisa marka koobaad user experience-giisa xoogaa aad ayuu u yar hooseeyaa oo markuu qofka soo galo uu ku yar wareerayaa lamana rabo in lagu wareero graphic design-kan ayaan tusaale aan fiirinaynaa
qaybtan ayaanan koorsooyinka mid ka mid ah ayaanu ku dhufanaynaa Adobe Illustrator kan ayaan furaynaa tusaale halkaana waa halkii koorsada aad ka iibsan lahayd way leedahay review oo waad fiirin kartaa inay review leedahay in kale dabcan waxaan jeclahay in hadda koorsadan aan laga bixin wax review ah balse qaybta reviewga way leedahay muuqaalka introduction-ka ahna way leedahay contentiyada aad baranaysay oo dhan ama moduleski ama sectionadii oo dhanna way xusan yihiin oo halkan ayaa lagugu sheegaya balse uma jeedi muuqaalo furan taasna waa caqabad kale muuqaalada waa in 2 ama 3 ama ugu yaraan 2 ay furan yihiin